dadka waayadan dunida jooga markii qof dhibkiisa ugu sheekeeyo waxay u qaataan inuu yahay qof daciif ah. Wixii bareefad ku ahaa ay dadka ula wadaagayaan si public ah, waxay wax u jeclaadaan inay qofka ka helaan waxa ay jecel yihiin. Haddii ay ka waayaanna nacayb ayay bilaabayaan. Waxay xasdaan qofka xushmeeya, waxayna qadariyaan qofka iska dhiciya. Si kastoo aad u caawiso wanaagna ula jeclaato, waa hilmaamaa abaalna kaagama hayaan. Waxay ka cararaan qofka xooga weyn oo dulmiya, waxayna raadsadaan qofka miskiinka ah oon waxba ka samayn. Markii uu qof soo booqdo ama shaah u shubto ama sharaab, waxay ka jecel yihiin inaad siiso jarjar ama passwordka internetka ama wifi-haaga. waa sida bluetooth oo kale. goortii aad u dhowdahay waa kugu xiriirsan yihiin, goortii aad ka fog tahayna waa kala fog tihiin. Si kastoo ay tahay, haddana weli waxaa dunida ku harsan oo ka buuxa dad wanaagsan, qalbi nadiif leh, naxariis badan leh, xaqiiqdiina aan la leexin karin. Markaana dhiirigelinta nafsadaada, ha xadidin riyooyinkaada iyo hankaada, waayo ogow inaad samayn karto wax kasta inta uu la eg yahay. Noqo qof samaysta farxad, ha noqon qof ay samayso farxaddu. Ugu yaraan maalintii ku dadaal inaad hesho waqti aad ku dhiirigeliso naftaada. Tusaale ahaan, dhageyso qisooyinka ku dhiirigelin kara ama daawo fiidiyoyaal waana ah. Ka agdhowow oo ka qayb gal meelaha lagu qabto bandhigga cilmiyeedka. Ku tababar naftaada inay ka caajisin waxay go'aansato, isla waqtigaaba ku dhaqaaq waxaad go'aansatay. Ku noolaa kalsooni nafeed, ogow in dhib kasta oo ku soo wajaha aad ka dheefayso oo aynan waxba ku yeelaynin inaad wax ka barata mooyaane. Noqo qof ay ka go'an tahay inuu horumar gaaro, waayo qofka haddaanu lahayn go'aan qaadasho dhab ah way adag tahay inuu horumar shakhsiyeed gaaro. Ha isdhibin markaad la kulanto dhibaato, u qaado inay tahay wax ku xijoonayo, waayo guul kasta dhib baa kaa xiga, ha yaraata ama ha badnaatee. U riyow si ballaaran oo aan xad lahayn. Noqo qof aan hankiisa weyn yahay oo fila markasta wax wanaagsan waad helaya insha Allah. Iska ilaali inaad dayacdo waqtigaada oo aad ku lumiso waxaan faa'iido ku lahayn. Ka dheerow isqoomamaynta, waayo waxay dishaa hankaaga iyo himiladaada. La saaxiib dadka leh himilo iyo han aragti fog oo mustaqbal leh. Ka dheerow dadka niyad-jabka abuura ee aan wax rajo ah ka lahayn nolosha, waayo adna waxay kugu dari karaan kooxdooda. Ka dheerow waxyaabaha ku horseeda dib u dhaca qorshahaaga. Joogtee xamaasad nafeed adigoo dib u jaleecayo guulihii aad gaartay. Ilaahay tawfiiqda saaro, insha Allah waad gaaraysaa.